Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkani waa Sahan Academy, hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha. Weli waxaanu ku guda jirnaa muuqaaladii taxanaha ahaa ee aan kaga hadlaynay meelaha ugu muhiimsan ee maadada chemistry-ga fasalka form 4-ka. Waxaan maraynaa qaybta carbohydrateska ama page-ka aan dhaho 122 oo markaasi aan kaga hadlayno oligosaccharideska. Oligosaccharides maxay yihiin iyo polysaccharide-ka ayaan qaybtan aan kaga hadli doonaa. Oligosaccharide marka hore maxay yihiin? Oligosaccharide waxaan ku qeexi karnaa marka hore inay yihiin carbohydrates which undergo hydrolysis into 2 to 10 molecules of the monosaccharide. Marka oligosaccharide definition garan siinayna waa carbohydrates which undergo hydrolysis into 2 to 10 molecule of monosaccharide. Oligosaccharide-ka waa lasii qeybiyaa ilaa dhowr qaybood. Waxaa loo qeybiyaa kow disaccharide, waa mid ka kooban kaliya laba sokor oo monosaccharide ah ama laba isku dhis oo monosaccharide ah. Waxay kaloo ka kooban yihiin ama qaybaha kale trisaccharide, waxay ka kooban yihiin 3 monosaccharide. Markay ka kooban tetrasaccharide waxay ka kooban yihiin ama tetrasaccharide waatana waxay ka kooban yihiin 3 monosaccharides ay ka kooban yihiin. So marka mid aan u kala qaadaynaa marka oligosaccharideska qaybaha loo qeybiyo saddexdaas waa di, tri iyo tetra. Diga are carbohydrates aan leenahay qaybtan aan kasoo qabanayna waa carbohydrates that give two same or different monosaccharide molecules ay markaas siinayaan. Okay, kuwa ugu caansanna waa kuwana. Haddii markaasi aan sii socono laba monosaccharide walbo dabarka isku xira waxaa loo yaqaanaa glycosides bond linkage marka la yiraahdo. Laba monosaccharide walbo waxa isku xira waa. Okay, kuwana waxa waaye waa monosaccharides way iyo wixii markaasi ka samaysmay. Tusaale maltose oo kale waxay ka samaysantay alpha dexter glucose iyo alpha dexter glucose. Markay falgal sameeyaan waxaa samaysmay maltose ayaa samaysantay oo disaccharide haddii laba sokor oo monosaccharide ay markaa ka samaysan. Trisaccharide-ka definition-kooda waxaan leenahay carbohydrates way that can be hydrolyzed into 3 monosaccharide molecules ay markaas samaysmi karaan. Tusaale soo qaatay raffinose oo ka kooban glucose, fructose iyo galactose. 3 monosaccharide ay markaa ka kooban tahay raffinose ayaa markaas samaysmay. Nooca kale ee afaraad waxaa markaa lagu magacaabaa tetrasaccharide. Tetrasaccharide waxaan leenahay waa carbohydrates that furnish 3 monosaccharides on hydrolyze marka uu sameeyo 3 ay markaas soo saaraan. Starch ka mid ah waxay ka samaysan tahay 2 galactose oo 2 ah iyo sidoo kale 1 fructose iyo sidoo kale 1 glucose ay ka kooban tahay. Haddii aan sii aadno qaybta polysaccharideska aadayna polysaccharide marka hore muxuu yahay definition-kiisa ayaa muhiim ah. Polysaccharides marka qaybtan aan ka qaadanayna waa carbohydrates way that give large number of monosaccharides on hydrolyze. Marka hydrolyze lagu sameeyo waxay soo saarayaan 10 wax ka badan ay soo saaraan 2 ilaa 10 oligo ayaa iska leh. Hal kaliya waa monosaccharide way ama laakiin 10 wixii ka badan waa polysaccharide way. General formula-da oo polysaccharide ay leeyihiin waa C6 H10 O5 all 10 ay markaa noqonaysaa. Waxaana muhiim ah number of carbonska in ay markaas u dhaxeeyaan 300 ilaa 3000. Yani tirada ugu yar inay ahaato 300, tirada ugu badanna inay ahaato 3000. Waxaana tusaale u ah starch, cellulose iyo sidoo kale glycogen waxay tusaale u yihiin waa polysaccharides. Shaqooyinka carbohydrates ay qabtaan guud ahaan waxyaabo badan oo loo isticmaalaa. Waxaa loo isticmaalaa energy oo markaasi animalska isticmaalaan iyo bini'aadamka isticmaalaan. Sidoo kale waa body fuel way shidaal jirka u isticmaalo. Carbohydrates waa food reserve way yani cunto keydiye plant marka la joogo waliba starch-ga. Animalskana waxa waaye glycogen ahaan u keydiya. Carbohydrates structure-ka ama carbohydrateska iyagu waa qaab dhismeedka asaasiga ah ee cell wall-ka. Cellulose oo kale waxa ugu muhiimsan ay ka samaysan yihiin waxa loo yaqaanaa waa carbohydrates. Waxaan filaa markaa in qaybtan si fiican markaasi loo fahmay page-ka 124 aan marayna. Intaan kusoo gabagabeynayna marka muuqaalkan intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaa nabadiino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.